qaar ka mid ah waxgaradka iyo culimada ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxay booqasho gaaban ku tageen masaajidka dhismihiisu ka soconaya deegaanka Meegagle waxayna soo indheyndeynayeen halka uu marayo masaajidkani oo maalmihii u dambeeyay dhismihiisu ka soconaya deegaanka Meegagle waxayna si isku duubnaan ummadda islaamka uga dalbadeen in la soo dhameystiro oo la soo raaciyo inta yar ee ka harsan baydkan Ilaahay waxaana ka warbixiyay xaaladaha masaajidkan Sheekh Cabdullaahi Jaamac Haruun oo gacanta ku haya dhismaha masaajidkan isla markaana u soo dhabar adeegay dhismaha masjidkani Ilaahay isugu keenay bogcadan barakaysan saaka oo ah magaalada Meegagle khaasatan masaajidkii cusbaa ee aynu waday muddada dheer soo wadnay ikhwaani daliya dibadba waa dareemaysaan oo waa aragtaan masaajidku meesha uu marayo masaajidku ma cagdhigna oo cagtii way maqan tahay safiita male oo safiitadii way maqan tahay dushiisa qabiya ka muuqato oo isgaarsiintii buu u baahan yahay cadayn buu u baahan yahay wax fara badan buu u baahan yahay waxa kale qabiyo aad aragtaan qolalkii masaajidka loo dhisay oo laba aha in hadda seeskii uu taagan yahay bulkeetigii lagu dhisi lahaana hadda gacanta lagu hayo oo ay shaqaalihi ku socdo marka waxaan aad idinku baraarujinayaa inaad indhaha la raacraacdaan qabiyada masaajidka waa ogtiinoo masaajidka cidi ma leh waa loo siman yahay muqiim iyo musaafir waa loo siman yahay wa anna almasaajida lillaah masaajida ilaahay baa iska leh waxaan codsanaynaa in qarashkiisuna inuu dadka ka wada dhaxeeyo oo laga wada qayb qaato waxaan ugu boorinayaa walaalayaalow ujeedadeena rasmiga ahi qof kastoo islaam ah waxa weeyaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala janneeyo oo cadaab iska badbaadiyo waxaynu ka heli karnaa masaajidda iyo goobaha cibaadada waxaan leenahay fursaddan waa fursad aad qaali u ah fursadda aan ka faa'iidaysano waxa weeyaan lacagta uu u baahan yahay masaajidku $1,300 oo deyna waa laynoo sheegay 7,000 waa u baahan yahay oo ama labada qol ha noqoto ama cagdhig ha noqoto ama nuurada ha noqoto ama rinjiga ha noqoto ama biyaha ciida waxa kale sidaasa injineerkii guriga dhisayay uu ku qiimeeyay waxa weeyaan walaalayaal fadhiga ka kaca masaajidkani maalmihii u dambeeyay dhismihiisu ka soconaya deegaanka Meegagle ayaa wuxuu hadda soo gaaray heer gabagaba iyadoona ay ka qayb qaateen muslimiin badan oo ku kala sugan dalka iyo daafaha caalamka culimadan iyo waxgaradkan ayaa waxay si wada jir uga dalbadeen ummadda islaamka in la soo dhameystiro inta ka harsan masaajidkani Cabdi Casiis Aadan Jaamac Somsa TV magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn